horta waxaas dhan diyaar waaye number 1 waxaan sameynaynaa inaan ogaano horta heerka aad ka taagan tihiin hadda Google Ads qofkii soo qaatay iyo qofka kale adi horta magacaa yarka ila soo hadlaya aniga Cabdiladiif bulsho aniga Cabdiladiif waxaa dhahday inaa hore u soo qaadatay halkee ka soo qaadatay Google Ads-ka waxaan ka soo qaatay meel nin la yiraahdo ii sheegeen Shariif si fiican waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka fahansan tahay marka waxaa gudagalaynaa qayb yar oo maxaa la dhahaa su'aal yar ka weydiin doonaa Google Ads-ka adi waxaa dhahday waxaan rabaa inaad ku shaqaysto si fiican hadda ma taqaanaa wax farqiga u dhaxeeya clicks iyo impression of course click waxa waaye مثلا marka shirkadu qof aad u xayisiisid inta qof oo barnaamijkaas click siisay oo furtay oo yani barnaamijkaas click ku soo furtay impression waxa waaye in allah inta la tusay xayisiinta dad la tusay ama yisfur ama ha furan laakiin waa impression wixii xayisiinta dadka la tusay clickna waa qofkii furay maxaa la furaa marka waxa la furaa maxay ama linkigii ama xayisiintii inuu qofka soo dhaxgalo dalab waxa xayisiinaysa inuu ogolaado ama uu furay يعني waxaa laga wadaa مثلا فيديو click waxa waaye qofka inuu landing page-ka ama final destination-ka tusaale qofka sales page oo leeyahay sales page-ka inuu tago oo halkaas uu gaaro waxa loo yaqaan click su'aasha kale rabaa Google Ad Extensions-ka maxaa ka taqaanaa Google Ad Extensions waxa waaye مثلا extension waxa uu kala qabsan dhowr nooc مثلا كل extension-ka iyo Brace extension-ka maxaa rabaa ujeedada guud ee extension-ka loo isticmaalo maxay tahay waxa waaye in extension waxa loo isticmaalaa in xayisiintaada ku dartid koolkii laga soo wici lahaa inaad suubisid promotion price ama مثلا kala qiimo dhimis marka suubinaysid boqolkiiba konton aad suubinay inaad suubisid in promotion oo maalmaha sida Black Friday oo kale in extension xayisiinada aad xayisiintu suubisid kale kuwaas la yiraahdaa ad extension-ka ma garan okay ad extension-ka wax kala ma ahin waxa laga wadaa xayisiintaada function dheeri inaad ku dartid yani wax marka xayisiinaysid description-ka lagu sii wax walba ku soo koobi kartid marka aragtid xayisiintaada inaad ku dartid yani extension dheeri ama function dheeri waxa loo yaqaanaa yani waxyaabaha isticmaali doontida ad extension loo yaqaanaa su'aasha kale aan ku weydiinaa waxa waaye quality score maxaa dhahaa ustaadi wax yar noo dul qaado samaacad baa soo qabanaynaayo codkan nagu yar hal kumitarna waa isticmaalaynaa ma garata okay si fiican marka yar baa noo baxay samaacad noo keenay inta sarf su'aalina ku sii weydiiyaa ma garata hay diyaar waa ustaadi aniga waxaan rabnaa systemka guud hadda yarka ila jooga oo hadda samaacadda noo raadiyay adigu 10 xiisada koorsadaada qaatay aniga waa soo qaatay yarkaana wili ma soo qaadan marka muhiimad waxaan rabnaa suuqaani taatikada ay u dhimanayso sida profile inaan nala dhisidoo kale profile ugu fiican inaan nala dhisid xiisada imsi soconaysaa wax adiga noogu tala gashay qiimaha noogu dhigaysid inta noogu soo koobisid toobikada aad ka fagaraynaysid oo adiga aad leedahay nimankan waa intaasan ka dhiman intaas aragna ma garato iyo wixii kale oo faahfaahina weligeena kala harimayne contactigina waa kala haysanaa wixii dheeraadana aan la macaamiishaada ka midnahay ardadaadii ma garato maya yani qofka markaa adi dhakhtar markaa tahay qofka markaa ogaatid meesha xanuunaysa daaweyn kartaa moogtahay si fiican ani waxaan rabaa marka inaa ogaado levelka aad taagan tahay haddii hore project aad u samaysay yani wax oo improvement haddaa qaaday ama wax maxaa la dhahaa report aad diyaarisatay jiraan waxbaas go'aan aan u qaadan karnaa laakiin hadda qofka markuu ku dhaho niyahow kasoo qaad Google AdSense aqaana ama Google Ads aqaana inaad ku shaqaystaa rabaa oo ama profile-kaaga inaad dhistid simply portfolio-gaaga inaad soo muujisid easy way fududahay qofka inaad dhahdid inaad profile-kaaga freelancer aad ka registreyno ama Upwork Guru meeshii ahaato aad ka diiwaan gelino simple waaye laakiin waxaan rabaa qofka macmiilka oo beri aad rabtid inaad wax u qabatid يعني بروفايل او قنعي كرو بروجكت انا توسي كرتيد سؤال لو ويدينا سؤال سنه كجواب كرتيد اوكي انا هورت هل بروجكت يا سبي انا يوتيوب كي هورت هل مره حيسين سبي حيسينتاسنا الحمد لله كبير كجابي لكن بروجكت كله او شركه اي ليهين ولي ما نصوبين فرصدنا 10 كان وان فهمي لكن من بلو الى ما انت دايره waxaan suubi
وصوبي كرا استبيد وما كرا لكن ليد كي ايش ويب سايت ترافيك كي سيرش كي سيلز كي وحاصل وين فاس لكن اهم شيء ماشي دمنيسي شركه ماشي دمنيسو waxa waaye bilow ah la wali project ma nasoo shirkad ma nasoo marka inaan naga dhistid qaabkii project aan u guuleysan lahaa okay bas marka hadda maadaama aad samaysay youtube ka soo qaad qof wuxuu ku dhahay niyo videogan youtube aad ii samee waxaa rabaa in maxaa la dhahaa alaabtana iibiya dad badan ay gaarto dadka youtube isticmaalo inay xayisiinta arkaan rabaa marka xayisiintii aad kicisay qofkan wuxuu ka rabaa beri presentation ama report inaad u diyaarisid report ma diyaarin kartaa maya okay okay hadda waxaan dhahday xayisiintii waa kicin karaa marka waxyaabaha oo basic sida quality score ki waxaas wax ma ka taqaanaa quality score ka iyo sida loo xisaabi si faham maya quality score ka xiisada way ugu jirto waan qaatay laakiin ayada aan tabaqayo ma garan maya مثلا marka google ka xayisiinta aan dhor jira isku tijaabiyo oo leeyahay kale buur buu soo qado waa aad u liitaabi ugu yiri quality score marka waa in quality ay xayisiinta in high quality tahay laakiin maya quality score ka ma fiicna ma garan صح ما quality score ka يعني waxa lagu ogaadaa ma taqaanaa waa tool waaye oo lagu ogaanayo yani xayisiintaada inay high tahay iyo in kale sidoo kale waxaa jiro ka soo qaad competitor camal hadda shaashada u jeedina amrena هذا دي أماشي أنكو قرأ digital marketing course عمل هذا أوجدت number 1 وحايسو قلي IID سما سفيان number 2 وحايسو قلي accessible number 3 digital creative platform سدح لنا أيسو قلي كشيء يعني وحلقي أبا مد كان هراء كو يسو قلايو إنه كان كالعق بدنيا لقي أبا لكن هو كان كواليتي كوركيس في عيال قابلوا حسابي جرتو سيف هو كونفرشن فاليو انه هذه حيسيت لما بيج كود يجي ما يجيس مداس wax lagu geeyaa jirta ayada iska matagayso سيف يعني waxa soo loo yaqaan marka ad rank waxyaabaas dhan wax ma ka fahansantahay sida loo sameeyo سيف يعني marka hay hadda maxaa la dhahaa ad rank ma noo shaqayn kartaa ma noo shaqayn kartaa ad rank habeenka way weydiismaya rankiga yani xaysiinta meesha ugu jirta waay yani tamaan xaysiinta ganacsiga rankiga ay ku jirto okay soo kale waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ad group maxaa loo yaqaanaa ad group waxa waaye ganacsi xaysiintaada inaad isku soo aruuriso hal meel isku keentido hal magac isu bisido مثلا لو كلا ايش يعني دور حيسمك كل سوبنسيت اني اكو كلا ساري هنا كو كلا نمسين جروب اكو سوبنسيت جرافت صح وانت بس انت اسلم يا اد جروب انت سوى قانون اوكي ماركه تصاله حيسينا اركتي اما حيسينا كعنوسا كونفرشن ريت كاga aad u yar yahay sida hormarin kartaa ما يقسمها يبتدي اوكي wax ma ka fahansan tahay CTR ka iyo sida loo xisaabiyo ما والله حسابت اسمها ما CTR ka marba YouTube kaaga daawaday baa xisaabinaysay laakiin ma ana dabaqin ma garato okay noocyada kala duwan ee keyword-yada ma taqaanaa la isticmaalo waxaa jira waxa la yiraahdo expert iyo modify head waa laqsana saddex qayb jirta mid coma iyo bracker iyo mid plus ay mid ismantu caadi u yahay intaas ma garato keyword afra keyword isaga ku jira bulshada waxreena keyword ما فهمت
keyword iska noocyada kala duwan keyword-yada ma fahansantahay aha waa fahansanaha hay keyword iska waxa waaye mid waxa waaye expert mid expert ya loo ciyaar loo ay waa ka soconaynaa dhib ma lahan bacajro xaysi markaa sameynaysid keyword la isticmaalaa mostly Google ad markaa lama caamilaysid xaysiintaas sababtoo ah waxaa artaa qofkan wuxuu soo baarayo inaad target garaysid marka keyword waxa la target gareeyaa waxaa kamid ah wax loo yaqaano phrase match broad match phrase match marka dhib ma lahan waa ka soconaynaa waa arki doonaa okay biddingka wax ma ka taqaanaa biddingka Soomaa yeah hello marka shacabay maxaa la dhahaa waa ka gudbaynaa